maxaa kalifi in Sharma Boy arintan soo cusboonaysiyo oo mar labaad oo ka soo hadlo maxaa keenaya marka wax igu kalifay marka ano oo aan ninka aan u naageenin aan ka baqin oo aan video u igaheenin oo waxbana igu sameeyeen wax igu kalifay inaan dhaho aniga habeenada kamid ah anoo garow jooga wax soo wacay deeq darajo soo wacay wuxuu igu yiri ninaga shit السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأولادكين يابس 24 on له ورهيا أذيكا وكما سنتين سيد الشرفت له أنا يسود ويسين أو درجة شال ماشى جو يقوتين أو جيسين مال سر إنه بعد مان I like it ما أنت مع برنامج ماشى نكوه النمرك تاسوي سؤال برنامج كان ماشى نكوه إنه رياكشن إيو هيسي وحكلا معهن وحواي فنان كان ده يراي شرما بوي كذا ويب عمسته محوح شرمي حتى نوقع صاحب أريمان سيدا وجدنا نوحي السعودين muddo ilaa iyo adiga sida anigu u maleynaya bil ka badan oo maleynaa mise isbuucooyin ka badan wax dhamaanayna uma eko musalsal ay u egyihiin waxa uu ka hadli doonaa Sharma Boy sida wax ay u jireen bilow ilaa iyo dhamaad xogaa waxa ku jiro videogan muuqaal aan xogaa dadaawin karin Sharma Boy oo xamaasad qaadayso oo oynayo wuxuu la oynayaa wax kala maahan waa ciil daraadiisa marka hadda waxaan rabnaa arintan inaan dhax galno oo Sharma Boy marka waa kaasa taawasho wanaagsan marka حواي هرت مرول بحسها برنامج سيدان هذا وحواي هذا برنامج تالنت جاوا وحواي فن يهز وأنت أكو وحصاد لين لكن وحياة بدنا وحجر ودي هذا معنا كوك قصباي إن سوى هذا الشيء sida hadda u jeedno Sharma Boy talent wuxuu ku leeyahay waa in oo heesa oo dadka heesa u soo gudbiya dadkana si damaashad iyo wax ay ugu ciyaaraan ma ahan asiga talentigiisa inuu meeshan soo ag fadhiisto oo ka hadlo laakiin maanta wuxuu isku dayay inuu soo fadhiisto oo runta dadka uu sheego marka waana tana marka waxa waaye wixii ay dadku u jeedaan oo muuqdo ee arkaan oo ayagu maxaa la yiraahdaa fasirnayaan waa gooni laakiin waxa hoose oo anaga shakhsi aan dhalinyarana heesto cid la socoto barahan ama og ama ka fanaaniin xaqiiqada markii laga hadlayo fanaaniinta Soomaaliyeed waliba kuwa dalka ku sugan oo dalka joogo waxa waa intooda badan gumeysiga macnaha qaab darbiga ku jiraan ha noqdaan qaar fiidiyoyo laga haayo kuwa ma aragtay qodobta ka jirno oo maxaa telefoon ugu gumeysto kuwa dad loo soo adeegsado ma aragtay oo dad ma aragtay Soomaaliya dadka joogana waxa waa xaqiiqada markii laga hadlo $20 qofka dal sida hadda u jeedin wuxuu ku bilaabay marka wuxuu taagan yahay dhalinyarada hadda soo baxayso iyo kuwii asiga ka horeeyba in ay ku jiraan gacan xaasidnimo wadato in ay ku jiraan gacan bini'aadan in ay ku jiraan oo ka hadlooya marka in lagu haayo qabateen lagu haayo dhalinyarada Soomaali joogto iyo kuwii asiga la mid oo hadda soo baxsanaa YouTube-kii gacan inuu galo YouTube-kii inuu isoo noqdo inaan raali gelin soo bixiyo inaan hadana wax ka soo jafo waxa soo dhan xaqiiq dhab oo guud ahaan hadana naga mahaayo waxa dhabtoo hadda taagan markii laga soo tago qadartii dhacday iyo maxaa la yiraahdaa tacsidii oo na gashay iyo xabsigii markii laga soo tago waxa waaye horta ninaan qalad nagu soo maagay anaga oo qaladka markuu nagu soo maagay maxaa la yiraahdaa anoo iska joogo Djibouti aqoonna aan u lahayn waxbana aysan naga dhaxeelin oo waxaan arkay nin iga soo hadlayo aniga maxaa la yiraahdaa oo bilaa macna dara been u jeedo oo cad ka hadlayo ninka waa marmar waa arki jiray maxaa la yiraahdaa laakiin kuma xirneen aniga nin oo social media ku jiro oo yahay qabyaalada iyo siyaasadda ka hadlay waxyaabo noocaas inuu yahay arki jiray marka arrimo iga waaweynayeen wax soo meelay jiro kulay dawlad iyo wax is afansan yihiin iyo waxyaabo dad isqabteen inuu ka hadli jiray waxaas u maleeyay sida hadda nii muuqatana Sharma Boy wuxuu ka hadlooyaa waxa waaye daahir cali soo waaye qof kale ma ahan hadalka meeshaas uu la jeedaa laakiin magaca ilaa hadda ma sheegayo waxa u maleynaa gadaal in uu ka sheegi doono ninka dhibka ku haayo Soomaalida dhibka ku haayo dhalinyarada hadda soo kacaysa dhibka ku hayso waayeliinta dadka dhibka ku haayo Soomaalida oo dhan ninkay ka cabaalayso waa daahir cali soo waa marka ninkaas oo hadda ka hadli doona marka laakiin kama dambeys waxa ogaadeen in iska midtac ah oo iska hadlo oo siyaasad xataa aan waxba ka aqoonin dawlad aan waxba ka aqoonin qabiil aan waxba ka aqoonin because ilaa hadda qabiilku uu yahay iyo qolada uu yahay ama aqoon u maleeyay umana maleynaya dadku uu sheeganayo inuu ka dhashay because qofka waxa waaye dadku uu sheeganayo dad wax cisto
oo dad macnaha maxaa la yidhahdaa qabiil soomaalida ka mid ah oo la yaqaano oo magac ku leh oo dad ka dhashay oo siyaasiyiin leh oo dhalinyaro leh oo fanaaniin leh oo wax walba leh waaye oo waxaa waaye qofkan hadduu qaldan yahay qabsan karo laakiin aniga hadda waxaa aaminsanahay shakhsigaas asiga ah waa magiga lacag inaan ka samay sidee ni muuqata hadda ninka ka hadlayo waa Deeq Darajo waa ninkii asiga gacanta ku hayay wixiisa xoolihiisa oo u dhiibtay ninka asiga haysihiisa iyo wixiisa maamuli jiray oo YouTube-ka wax soo gelin jiray oo ahay Deeq Darajo lahaa wuxuuna joogaa Kenya ninkaas oo aaminay ninkaas oo wixii oo dhan oo ku dhiiba marka oo gaarsiiyay wax walbo si walaalnimo iyo kalsooni ay nooga dhaxayso oo isla marnay waxa waaye waa qof aaminay aniga yarteed aan ku aaminay waxa wixii uu ii soo diri jiray wax walbo ii sameyn jiray okay ninkaas aniga saaxiibkayga maanta hadii uu gacan uu galo ama gacan bini aadan ama qof uu gacanta ku dhigo waa ku qasbanahay in YouTube muhiim ma ahan naftiisa ay muhiim ah Soomaali Maxamed ha ogaato ama ka dhaadhacdo aniga ku adkaysi waan ku adkaysan karay ninkaas markaan lahaa 48 saac wada kaaga saaray markuu ilaaha aan lahaa wax aan xaniyahaaga fuul waxa iga qaadi kartid malahan anoo Muqdisho dhac joogo oo aan cidna ka baqaynin oo aan isdhihin qabiil aan aaminsaneen oo kan yahay idaarood iyo fidri ka dhaay qabiil iyo inta ku jirta iyo waxaas ugu jirin xaniyahayga nimadeeda anoo kalsooni kale aan deeyay cidna aan deeyay ama cidaas ka dhicinaysa ugu jirin ama qofna u soo marin rabina nimadeeda xaniyahayga ku hadlay inuu soo waxba iga qaadi karna ogaa because fanaaniinta Muqdisho sida hadda u jeedin ninkan Sharma Boy waa libaaxa sambari qofka boqorka oo kiinka oo dagaaltamayo halka mar oo laga raaynin karo waxa waaye marka dadkiisa la soo weeraro dadkiisa marka la soo weeraro ninka boqorka oo libaaxa markaas laga raaynin kara kaasna waxa lagu ogaani karaa inuu libaax yahay in kale waxa lagu ogaani karaa marka dadkiisa iyo xoolihiisa la soo weeraro in xoolihiisa iyo dadkiisa iyo dadkaas kale ilgooni oo ku fiiriyo wixii oo badbaadan iyo wixii ku jiran oo u dhaafo dadkaas daraadoodna oo wax walba oo u tanaasulo oo u dhaafo ninkaas la libaax hadda Sharma Boy sida hadda aan ugu muuqato wuxuu egyahay ninkan nin legend oo libaax maadaama dib walba iyo wax walba oo soo marayso oo asoo u jeedo oo ninkan iska celini karo laakiin saasay tahay in oo ka soo marayay dadka familkiisa iyo Deeq Darajo dadka YouTube ku hayay ciyaalka xaafadda oo ka soo marayay ninkan ma rabin in dadkaas la ciqaabo oo la xanuujiyo oo hadhow la dhaho biri ka maalin Sharma Boy niyahow waxaan madaxadeena noogu imaadeen oo gar labaad hadan la dhigto saasay tahay wixii oo dhan uu ka tanaasulay boqolkiiba 99 gacanta ugu jiraan nooca gacanta ugu jirna aniga ma ahan ma fahamtay uuna ugu soo qaldamay Djibouti ka soo bilaabo iga soo daba dhigtay waan ka aamusay shibanka ere waxyaabo badan oo ka hadlay Djibouti jooga gaaja ku dishay kan uu ka hadlay waxyaabahaas uu ka hadlay waa ka aamusay ilaa Muqdisho imaade waxa waaye wuxuu ilaahay farmaajo iyo maxaa uga soo hadashay arintii hadalay shibanka ere wuxuu yiri shoo kama qayb gali kartid macna salku salka ii saare wax igu kalifay marka anoo aan ninka aan u naageenin aan ka baqin oo aan video u igaynin oo waxbana igu sameeyeen wax igu kalifay inaan dhaho aniga habeenada kamid ah anoo garow jooga wax soo wacay Deeq Darajo soo wacay wuxuu igu yiri ninaga shit It's okay Sharma Boy sida hadda u jeedin Sharma Boy wuxuu taagan yahay asoo magaalada jooga ala soo wacay waxa la soo wacay wax kale ma ahan ninkan Deeq Darajo gacanta ku hayna waxaada xoolahaada dhiib hadii kale asaa ka tanaasuleyna Allah saasay tahay ninkan wixii oo dhan oo fiiriyay YouTube iyo qof bin aadan nafkiisa wallahi ninkan legend way dad aniga ogahay hadii Allah waxay dhilahay qofkaas dil aniga YouTube-kayga maxaa iga gala aniga xoolaha dhaqaaleysana saasay tahay ninkan wixii oo dhan oo ku tanaasulay wixii oo dhan oo u dhiibay the one and only legend Sharma Boy ku heysata dhalinyaradaas oo waxa way wuxuu adeegsaday nin laga baqo oo Rashid Nur Allah markii aan ka daba tagay aan dhahay war ka baqin waxba idinku ma sameey karo waxa la itaha Ahmed Rashid aan dhahay waxa la itusay video ninkaas oo dad dilaayo oo dhalinyar Soomaaliyeed dilaayo laamiga dhexdiisa ku dilaayo videogaas markii arkay ninka saaxiibkayga waa u baqaanay sida u jeedin Sharma Boy the one and only legend qof celin karta mala Soomaali weyn hadii iskugu tagto ninkan nin baxsada waa marka ninkan waxa waa nin hadli karo oo hadana raabi karo waa marka ninki marka waxa uu igu yiri live soo gal way bari fad waa bariye ninki marka bariye waxa waxa la isheegay ninka saaxiibkayga ahaa in la sii daayo Deeq Darajo markii la sii daayo waxa ku yiri saaxiib ka soo tag meeshaas
waxaa waaye imow jimiilkayga ninkii gacantiisa u gale inta imaa ku ere waxaa deeq darajo ka soo tagay ilaahay deeq darajo iyo familkiisa meeshii iyo gurigiisa iyo wixiisa iyo noloshiisa oo ka soo carro oo anigu xabsi ku jiro uu garowe ila imaado waxaa Soomaali wax ma fahansanin deeq darajo ku qayaani waxyaabo noocaas ka hadlaaya marka hadda waxay taagantaa waxay ugu kalifay inaan soo hadlo waxaa waaye ninkii maxaa la yiraahdaa hadda YouTube-kii baasweerkii wixii oo dhan gacanta ku haystaa inta ka baqaay ma laha gacanteedina ay u jiraan waxaa waaye maanta dee kalsooni iyo khibrad aan u leeyahay ee Soomaali ugu aamintay aan YouTube la soo fariistay ee qofna ma bariito ma qaado sida hadda u jeedno ninkan wuxuu taagan yahay fanaaniinta Soomaali waa la caburiyaa gumeysiga ku nool yihiin waxaana gumeyso dadkan qurbaha joogto dadka qurbaha joogto Sembri wax ay hayaan ma lahan waa dad ciir ku wada nool waa dad barnaamijna dara qaar ku nool kuwaas waa kuwa dadka gadaal Afrika joogo cagta u saarayo dadka dhibay laakiin dad fiican way jiraan oo qurbaha joogo oo nadiif oo fiican laakiin kuwa xun oo asiga uu ka looyaa marka kuwaas waa marka kuwa dhibka wado saaxib ninka libaaxa sana lagu gartaa qofka fuleygana waxa waaye qofka toos uma aado sida hadda u jeedin waxa waa qoraalada uu soo qoray iyo messageyaasha iyo WhatsApp hadalaha daar culus uu soo qoray ani la wadaaga marka sida tahay Sharma Boy runta oo ka hadlay ninkan daar culus oo dhahayo dadka dhalinyarada uma roono waayeeliinta uma roono dhalinyarada hadda soo bixi doonto uma roono ninkan wuxuu hor istaagaa dhalinyarada hadda soo baxayso oo rabaan inay kaligood soo saaraan kaligood wax soo saaraan kaligood shaqeystaan kaligood wax abuurtaan oo rabaa inuu hor istaago oo caburiyo oo asiga ka amar qaataan saasay taana anaka ma yeelano dadka dhalinyarada Soomaalida waxa leenahay saaxiibkeena Sharma Boy fanaankeena garab istaaga garab siiya habeen iyo maalin ininka hor istaagsaneedeen ininka garabku ku heyseen walaalkeena Sharma Boy madaxuu noo saaraya mar labaad mar saddexaad fadlan wixii comment noo wadaag waa muhiim aragtidaada wax weyn noo tahay fadlan hadda channelka ku cusub tahay like sub gambaleelkana taabo video kasta qeyladiisa buukiisa rafaadkiisa oo maqashid haddana waxa ku leeyahay stay safe stay clean nabadgelyo